Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Ku soo dhawaada barnaamijkan. Barnaamijkan waxaa uga hadli doonaa tobanka dal ee qaaradda Afrika ugu dhulka weyn. Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka kadib Aasiya, waxayna ka kooban tahay dhowr iyo konton dal, kuwaas oo isugu jira kuwo dhowaan la yagleelay iyo kuwo tan iyo isticmaalkii soo jiray. Waxaan halkan kugu soo gudbinayaa tobanka dal ee Afrika ugu dhulka weyn, annaga oo ka bilaabi doona midka tobanaad. Dalka tobanaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania. Waxa ay dhacdaa waqooyiga galbeed Afrika. Magaalo madaxdeedu waxaa la yiraahdaa Nouakchott. Badkeedu waxa uu gaarayaa 1,003,700 kiiloomitir². Shacabka Mauritania waxay gaarayaan 4,182 milyan oo qof. Waddanka sagaalaad ee qaaradda Afrika ugu weyn waa South Africa. Jamhuuriyadda Koonfur Afrika wuxuu dhacaa sida ka muuqata magaciisa koonfurta qaaradda Afrika. Badkeedu wuxuu gaarayaa 1,221,000 kiiloomitir². Waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 55.91 milyan oo qof. Caasimadda waddanka waxaa la yiraahdaa Pretoria. Waddanka sideedaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa waddanka Mali. Jamhuuriyadda Mali waa waddan ku yaala galbeedka Afrika. Waa dal xiran, ma lahan wax bad ah. Badkiisu waxa uu gaarayaa 1,240,000 kiiloomitir². Caasimadda waddanka Mali waxaa lagu magacaabaa Bamako. Dadka u dhashay Mali waxay gaarayaan 15 milyan oo ruux. Waddanka toddobaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa Angola. Waxay dhacdaa koonfurta galbeed ee Afrika. Badkeedu waxa uu gaarayaa 1,246,000 kiiloomitir². Caasimadda waddanka Angola waxaa la yiraahdaa Luanda. Dadka ku nool Angola waxay gaarayaan 29 milyan oo qof. Waddanka lixaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa waddanka Niger. Jamhuuriyadda Niger waxay dhacdaa galbeedka Afrika. Waa dowlad xiran, ma lahan wax bad ah. Badka Niger waxa uu gaarayaa 1,267,000 kiiloomitir². Caasimadiisu waa Niamey. Waddanka shanaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa waddanka Chad. Jamhuuriyadda Chad waxay dhacdaa bartamaha Afrika. Badka dowladda Chad wuxuu gaarayaa 1,284,000 kiiloomitir². Caasimadda Jamhuuriyadda Chad waxaa la yiraahdaa N'Djamena. Waxaa dalkan ku nool 14 milyan oo qof. Waddanka afraad ee qaaradda Afrika ugu weyn waa waddanka Liibiya. Waxay dhacdaa waqooyiga Afrika. Waa dal ka mid ah dalalka ugu dhulka weyn caalamka. Wuxuu badkiisa gaarayaa 1,759,000 kiiloomitir². Caasimadda waddanka Liibiya waxaa la yiraahdaa Tripoli. Dadka ku nool waxay gaarayaan 6,293 milyan oo qof. Waddanka saddexaad ee qaaradda Afrika ugu weyn waa waddanka Suudaan. Jamhuuriyadda Suudaan, dalkan waxa uu ahaa waddanka ugu dhulka weyn Afrika ka hor inta aysan go'in Suudaanta Koonfureed. Badka Suudaan wuxuu gaarayaa 1,861,000 kiiloomitir². Caasimadda waddanka waa Khartoum. Dadka ku nool waxay gaarayaan 41,680,022 qof. Waddanka labaad ee qaaradda Afrika ugu dhulka weyn waa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Wuxuu dhacaa bartamaha Afrika. Waa dalka labaad ee Afrika ugu dhulka weyn. Badkiisu waxa uu gaarayaa 2,344,000 kiiloomitir². Dadka ku nool Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay gaarayaan 82 milyan oo qof. Caasimadda waddanka waxaa la yiraahdaa Kinshasa. Waddanka koowaad ee ugu weyn qaaradda Afrika waa Algeria. Dalka Algeria waa dalka ugu dhulka weyn qaaradda Afrika. Waxa uu dhacaa waqooyiga Afrika. Badka Algeria waxa uu gaarayaa 2,381,000 kiiloomitir². Waxay ka kooban tahay 48 gobol. Gobolka Tamanrasset ayaana ugu weyn. Gobolkan wuxuu ka dhul weyn yahay wadamada Jarmalka iyo Syria. Caasimadda waddanka Algeria waxaa la yiraahdaa Algiers. Dadka ku nool Algeria waxay gaarayaan 40.61 milyan oo qof.